waxaan jeclaan lahaa inay iga soo jawaabaan dumarku shay ay iyagu leeyihiin bay u haystaan. nimanka kufsigii ka digigixi waayey ee intay kasii jeesteen iska indho iyo dhiga tiray, nimanka dilkii usoo dhaafay hablahoodii Soomaaliyada masaakiinta ah ee weli ka dhigala Sheikh iyo Shariifba. habartan dhalfada weyn ee lagu magacaabo Farxiyo Cabsiye ayaa muddo aad u badan waxay baraha bulshada ka waday aflagaadada ragga Soomaaliyeed ayadoona rag iyo dumar isqabay kala furtay. gabdhaha yaryarna waxay ka dhaadhicisay in ragga Soomaalida ay yihiin kuwa aan ku habboonayn in lala aqal galo, sidaa awgeedna ay habboon tahay in ragga kale ee caalamka ay nolosha la wadaagaan. ugu dambayn ay dhalfo weyn ayaa shalay oday waayeel oo caddaan ah la aqal gashay, welibana soo dhigtay baraha bulshada ayadoo ku faanaysa oo isla quman. waxay tiri, waxaan helay ninkii aan ku riyoon jiray. saa waa nin waayeel ah oo calool weyn iyo bidaar dheerba isku darsaday. bal hadda nala fiiriya, waayeelkan bidaarta dheer miyaa ka wanaagsan gebi ahaanba ragga Soomaaliyeed? waxaa jira dumar badan oo baraha bulshada ku jira kuwaasoo faafiya khaniisnimo, gaalnimo iyo qaar u ololeeya in dumarka Soomaaliyeed ay guursadaan rag gaalo ah oo aysan isku diin, isku dhaqan iyo isku midab ahayn. haddaba waxaan idin leenahay gabdhow, ka fiirsada cidda aad talada ka qaadanaysaan.